بسم الله الرحمن الرحيم ومعلم كمادة Human Resource Management عشركان وعشركي لبعض أن قادنين عشركي كهريي وحقوص سنة Introduction to Human Resource Management أيو قصاب سنة هدي أن إسحسوسينو وحان كسو شيكيني HRM in ay ka mid tahay waxyaabaha ugu adag uguna caqabada badan ee ka jira dhanka maamulka. Waxaan kaloo ka soo sheekeynay HRM in ay ka hadasho heerka dadka ay kala leeyihiin marka maamulka laga hadlayo. Waxaan kaloo ka soo sheekeynay in ay jiraan habab fara badan oo kala gidisan oo ay shirkaduhu la qabsadeen shaqaalahoodana kula macaamili jireen. Waxaan kaloo sheegnay in hababkaasi ay shirkaduhu la qabsadeen shaqaalahoodana kula macaamili jireen uu ka rabay habkaasi, yacni wuxuu amrayay habkaasi in ay shirkaduhu shaqaalahooda ula dhaqmaan sida hanti uu organizationka leeyahay oo kale, oo aysan ula dhaqmin sida يعني dad lagu adeeganayo oo wax lagu soo saaranayo oo kale. Waxaan kaloo introduction-ka ku soo sheegnay in HRM afar qaybood loo kala qaado oo kala ah: kow, acquiring oo ah in shaqaalaha la kasbado, cashirkii hore ayaan muraajaceynayna. Developing oo ah in shaqaalaha la horumariyo. Motivating oo ah in shaqaalaha la dhiirigeliyo. iyo managing oo ahayd in shaqaalaha si wanaagsan loo maamulo. Sidoo kale introduction-keena waxaan ku soo sheegnay HRM laba qaybood oo waaweyn in ay u qaybsanto oo kala ah: kow, managerial functions oo ah qaybta maamulka, iyo operative functions oo ah qaybta fulinta. qaybta maamulka waxaan dhahnay waxay qabataa planning oo ah qorsheyntii, organizing oo ah isku duwidii ama habeyntii, directing oo ah hagidii, iyo controlling oo ah dhammaan qaybahaasi hanaanka loogu talagalay in ay ku socdaan oo aan laga weecin lana ilaaliyo. Sidoo kale introduction-keena waxaan ku soo sheegnay qaybta fulinta ee HRM waxa ay qabato. waxaan dhahnay qaybta fulinta ee HRM waxay qabataa howlo gaar ah oo ay ka mid yihiin sida qorista shaqaalaha cusub, recruitment. Sidoo kale waxay qabataa horumarinta shaqaalaha cusub, development. waxay qabataa xaqsiinta shaqaalaha cusub oo aan ku soo sheegnay compensation, iyo employee relations waxa loo yaqaan ayay qabataa. ayaan dhahnay qaybta fulinta ee HRM. Employee relations waxaan ku soo sheegnay qaybta introduction-ka oo HRM. waxaan ku soo sheegnay in employee relations loola jeedo shaqaalaha sida ay isu hoos imaanayaan, sida ay u kala sareynayaan, waajibaadka ay kala yeelanayaan, iyo wixii intaas la mida oo la kala caddeeyo waxaa laga rabaa qaybta fulinta ee HRM ayaa laga rabaa. qaybtaas aan kaga soo gudubno horudhaca cashirkii hore aan soo qaadan. aan u imaano marka cashirkeena labaad wuxuu ku saabsan yahay definitions and concepts of human resource management ayuu ku saabsan yahay, oo ah in aan barano definitions, in aan barano HRM maxay tahay, in aan barano horta kow, iyo concepts of human resource management. sidoo kalena aan barano aragtiyada laga bixiyey ama ra'yiga laga bixiyey HRM waxa laga sheegay, oo dadka aqoon-yahanada conceptska ay ka bixiyeen HRM waxa ay tahay inaan sidoo kale qaybtan ku barano ayuu cashirkeena ku saabsan yahay. aan u imaano define human resource management oo ah
inaan qeexno human resource management waxa ay tahay. Okay, aan ku horeysiino marka aragtiyada human resource management laga qabo horta waa maxay tahay aragtida maadada HRM laga qabo maxay tahay. waxaa la yidhi HRM is both the art of managing people by resource to creative and innovative approaches. It's a science as well because of the precision and rigorous application of theory that's required. Okay, HRM is both both waa maxay waa art waa science labadaba way tahay both sidaas ayaa laga wadaa. Okay, aan ku horumarno marka qaybta koowaad. waxaa la yidhi HRM is both the art of managing people by resource to creative and innovative approaches. HRM waa both waa sheegnay waa art waana science. marka ay art tahay ayaan sheegaynaa. HRM waxaa la yidhi waa art. maxay art ku tahay marka? art maxay HRM ku tahay? waxay art ku tahay managing people by resource. dad ayaa la maamulayaa iyadoo la isticmaalayo dhaqaale to creative and innovative approach si ay hal abuur iyo horumarin u sameeyaan. HRM waa art waxayna art ku tahay waxaa la isticmaalayo dad ayaa la maamulayaa iyadoo la isticmaalayo dhaqaale si ay hal abuur iyo horumarin u sameeyaan. soo ma jeedid? The art of managing people dad ayaa la maamulaya by resource iyadoo resource la isticmaalayo to creative and innovative approaches si ay hal abuur iyo horumarin u sameeyaan. Okay, sidoo kale it's a science as well. so ma jeedid? because of the precision and rigorous application of theory that's required. waxaa la yidhi HRM sidoo kale waa science. soo ma jeed? it's a science as well. sidoo kale HRM waa science waxayna science ku tahay because of theory. waxay science ku tahay the precision and rigorous application of theory that's required. waxaa la isticmaalayaa aragtiyo sax ah oo aad looga taxadaray loona baahan yahay. soo ma jeed? the precision of rigorous application of theory ayaa la isticmaalayaa aragtiyo sax ah oo aad looga taxadaray loona baahan yahay ayaa la isticmaalayaa. sidaas darteed ayay HRM mar science ku tahay marna art ku tahay. art waaye waxay ku tahay dad ayaa la maamulayaa managing people by resource. dad ayaa la maamulayaa sidaas ayay art ku tahay. waa science waxay science ku tahay theory ayaa la isticmaalayaa iyo application ma fahamt ayaa la isticmaalayaa oo aad looga taxadaray oo haddana sax ah ayaa la isticmaalayaa. marna waa art marna waa science. that's the concept of human resource management. waa conceptigii oo human resource management laga yiri. okay, aan u imaano qaybta definitionka. qaybta definitionku waa maxay marka? HRM definitionkeedu waa maxay? la soco. HRM is the process of managing people in organizations in a structured and through manner. HRM waxaan dhahnay waa hanaan lagu maamulayo dadka organizationka ka shaqeynaya iyadoo loo marayo qaab dhismeed habaysan. qaab dhismeedka habaysan ee dadka organizationka lagu maamulayo ayaa wuxuu isugu jiraa kow staffing oo ah hiring people. qaab dhismeedkaas wuxuu isugu jiraa kow staffing oo ah hiring people oo ah hanaanka shaqaalaysiinta. qof marka la shaqaalaysiinayo hanaankii lagu shaqaalaysiin lahaa ayuu qaab dhismeedkaas isugu jiraa. sidoo kale qaab dhismeedkaas waxaa ka mid ah retention of people
sida shaqaalaha habboon loo ceshan lahaa ayaa ka mid ah qaab dhismeedkaas. sidoo kale qaab dhismeedkaas dadka lagu maamulayo, dadka organizationka ka shaqeynaya qaab dhismeedka lagu maamulayo waxaa qayb ka ah pay and back setting and management ayaa ka mid ah, oo ah in si wanaagsan loo maamulo bixinta mushaarka shaqaalaha iyo gunnooyinkooda. qaab dhismeedkaas waxaa qayb ka ah performance management ayaa qayb ka ah, oo ah in qiimeyn lagu sameeyo waxqabadka maamulka. sidoo kale qaab dhismeedkaas waxaa qayb ka ah change management, oo ah isbedel dhanka maamulka ah. haddii loo baahdo in maamulka isbedel lagu sameeyo, HRM ayaa ka hadlaysa habka isbedelka loo sameyn lahaa. HRM ayaa ka hadlaysa. Okay, and taking care of exits from the company to run off the activities. Exits from the company markan kambaniga dadka ka tagaya ama shaqaalaha kambaniga ka tagaya boosaska ay baneeyeen ama shaqooyinkii ay ka tageen, taking care in yacni la daneeyo oo booskaasi loo kaco lana buuxiyo. To run off the activities, si howlihii aysan qibyo u noqon oo howl dhammaystiran loo qabto. Taking care of exits from the company to run off the activities. maxaan ku sheegnay kambaniga dadka ka tagaya boosaska ay baneeyeen in loo kaco oo la buuxiyo. taking care in la daneeyo, loo kaco, la buuxiyo booskaasi oo dadka kambaniga ka shaqeynaya ay baneeyeen, ama dadka shaqaale oo kambaniga ka shaqeynaya oo shaqadii ka tagay booskii uu baneeyey in booskaasi la buuxiyo. Okay, sababtuna waa maxay? To run off the activities, si howlihii ay yacni u noqdaan howlo dhammaystiran oo wax qibyo looga taga ama howl qibyo noqota aanay dhicin. Okay, qaybtan aan intaas kaga gudubno, aan usoo gudubno qaybtan waxaa looga hadlayaa the terms of human resource management and human resource. The terms human resource management and human resource. qaybtan waxaana loogu sheegayaa in uu farqi u dhexeeyo kelmadaha kala ah human resources management iyo human resource keliya. Okay, human resource marka ay tahay waxaa loo soo gaabiyaa HR ayaa loo soo gaabiyaa. human resources management marka ay tahayna waxaa loo soo gaabiyaa HRM ayaa loo soo gaabiyaa. Okay, HR markay tahay marka human resource keliya markay tahay aan fiirino marka waxaan niri human resource management iyo human resource farqiga u dhexeeyo ayaan sheegaynaa. Human resource have largely replaced the term personnel management. kelmadan human resource waxaa laga soo bedelay kelmada ah the term personnel management. personnel management ayaa laga soo bedelay human resource. maxay ahayd marka personnel management? maxay wax ka sheegaysa? waxay wax ka sheegaysay a description of the process involved in managing people in organizations ayay wax ka sheegaysa, oo ah in shaqaalaha organizationka ka shaqeynaya la maamulo. maadaama personnel management ay wax ka sheegaysay shaqaalaha organizationka ka shaqeynaya in la maamulo, maadaama ay personnel management wax ka sheegaysay, HRM-na laga soo bedelay personnel management. HRM sida ay personnel management wax uga sheegaysay ayay HRM-na wax u sheegaysaa. Okay, personnel management shaqaalaha organization ka shaqeynaya in la maamulo ayay sheegaysaa. wakada personnel management waa sidoo kale shaqaalaha organization ka shaqeynaya in la maamulo ayay sheegaysaa. Okay, HRM maxay kaga gedisan tahay marka? HR maxay kaga gedisan tahay? HRM
ufirso means HRM waxaa loola jeedaa ama laga wadaa ufirso employing people ayaa laga wadaa ufirso waxaa laga wadaa in dadka la shaqaalaysiiyo employing people in dadka la shaqaalaysiiyo developing their capacities oo ah awoodooda shaqo gudashana la hormariyo sidoo kale HRM maxay kaga gedisan tahay HR maxay kaga gedisan tahay waxay kaga gedisan tahay utilizing ayay kaga gedisan tahay oo ah in laga faa'iideysto shaqaalaha waxtarka leh waxay kaloo kaga gedisan tahay maintaining ayay kaga gedisan tahay oo ah in la ceshto shaqaalaha waxtarka leh maxay kaloo kaga gedisan tahay waxay kaloo kaga gedisan tahay compensating their services in turn with the job and organizational requirement waxay kaga gedisan tahay shaqaalaha xaqooda in la siiyo si ay shaqo dhammaystiran u qabtaan intaasoo dhan ayay kaga gedisan tahay shaqaalaha yacni in dadka la shaqaalaysiiyo awoodooda shaqo gudashana la hormariyo in laga faa'iideysto shaqaalaha sidoo kale shaqaalaha in la ceshto okay qaybtan kale waa maxay iyadana waa in shaqaalaha xaqooda la siiyo si ay shaqo dhammaystiran u qabtaan compensating their services in turn with their job shaqadii ay qabteen hawshii ay u qabteen beddelkeeda in yacni xaqooda loo siiyo ma fahamta okay and organizational requirements si yacni maxaa iyo dhammaan wixii organizationka u baahnaa maadaama ay qabteen in xaqooda la siiyo ayay HRM ka yani ay uga gedisan tahay HR farqigaas ayaa u dhexeeya human resource management iyo human resource farqigaas ayaa u dhexeeya waxaan jeclahay in ay idin kala cadaatay human resource iyo human resource management haddaan idin sii jilciyo HR farqiga ay yani HR iyo HRM farqiga u dhexeeya wuu kala cad yahay HR waxay ka hadashaa internal ayay ka hadashaa HRM na external مثلا tusaale ahaan waxaan dhahna soomaan HR waxay ka hadashaa yani shaqaalaha organizationka ka shaqeynaya in la maamulo qof la soo qaatay oo la soo shaqaalaysiiyey oo la soo ogolaaday oo processkii shaqaalaha cusub lagu qaadanayay soo maray oo kambanigii soo galay qofkaasi in la maamulo maxaa laga wadaa qofkan waxaa loo qaatay shaqo ayaa loo qaatay مثلا waxaa loo qaatay in uu yahay accountant in uu yahay ayaa loo qaatay maadaama accountant xisaabiye in uu yahay loo qaatay shaqadii loo qaatay in lagu meeleeyo oo aan meel kale la geenin oo aan la geenin tusaale ahaan maxaa la dhahay technical department oo kale aan la geenin isagoo accountant ah مثلا ama waxaa loo qaatay technical ayaa loo qaatay shaqaale yani oo farsamo yaqaan ah ayaa loo qaatay in uu yahay qaabkaas ayay shaqadiisa ahayd waa in titlekii loo qaatay lagu shaqaalaysiiyo maadaama technical loo qaatay in aan laga dhigin accountant department in aan laga shaqaalaysiinin مثلا يعني managing people in organization dadkii organization ka shaqeynaya in ay maamusho ay HR ka hadashaa HRM na employing people shaqaalaysiinta wey dadkan in la shaqaalaysiiyo intaan ba horta shaqada intuusan qofka organizationka soo gelin intuunan soo gelin ka hor in waxaa lahaay qofkan horta la soo ogaado shaqada loo qaadanayo qofkan inuu soo ajiibay مثلا tusaale ahaan wuu soo ajiibay processkii qofkan shaqada lagu qaadan lahaa in la marsiiyo ma fahamt in la marsiiyo processkii shaqada lagu yani uu ku shaqaale uu ku noqon lahaa in la marsiiyo wuu maray kaba soo qaad processkii uu maray xirfad uu leeyahay darteed ayaa loo shaqaalaysiiyey sooma developing their capacities qofkan shaqadii xirfadu uu leeyahay in la sii horumariyo
oo aad loo sii fahamsiiyo qofkan shaqadii uu fahmay qofkan waa la sii hormariyay xirfadiisii aqoon kale loogu sii kordhiyay iyo ka fakarin qofkaas utilizing ka faa'iideyso qofkaas in laga faa'iideysto asoo awalba diyaarsan ayaa wax kale loogu kordhiyay aqoon kale loo siyaadiyay in laga sii faa'iideysto oo qofkaasi shaqada yani laga faa'iideysto utilizing okay maintaining la ceshto uusan ciyaar kaaga tagin asoo diyaarsan ayaad aqoon kale usii siyaadisay okay maintaining waa inaad ceshataa compensating xaqiisa sii wuu shaqeeyey shaqo gudashadiisa way fiicnaatay compensating xaqiisa sii waa kaasa farqiga u dhexeeya HR iyo HRM si weyn inaad u fahamteen ayaan jeclahay waana mahadsantihiin qaybtan halkaas ha inoo joogto la soco qaybta xigta